السلام عليكم guys ku soo dhawaada barnaamijkeena la talinta caafimaadka aan ugu baratay hadaan oo kale isbuuc walba inaan soo gudbino barnaamijkeena caafimaadka maanta waxa uu hadlaynaa cudurkan oo umada baabi'iyay oo loo yaqaan cagaarshow silent killer ala dhahaa afka Ingiriiska cudurkan cagaarshow loo yaqaan maxaa soo ku yimaada sidees looga hortagaa inta aan ugu dagalin koor sharaxaad cashirkayga waxa idin codsanaynaa hadda channelkayga ku cusub tahay fadlan subscribe saar hadda horena asxaab kamid ahayd channelka aad ahayd la wadaag asxaabtaada kale oo share noo dheh marka cudurka cagaarshow maxaa la cagaarshow waa cudur dilaa ah ee ku dhaca beerka wuxuu ku dhacaa beerka organka beerkan ku baabi'iya cudurka organka beerka baabi'inayo wuxuu noogu imaanaa isticmaalka raashinka anaga aan cudurka cagaarshowga problem ahaan wuxuu noogu yimaadaa isticmaalka anaga aan isticmaalno cunida waxyaabaha dufinta example after 5 o'clock wixii ka dambeeya aad waxa isticmaashaa waxyaabaha oo meatka sida hilibka oo idaha ama hilibka normalka oo fats ku badan hilibka aad isticmaashada wuxuu sameeynaa hilibkaas ku aruurayo beerka shaqada qabato waxay tahay detoxification way qasan shaar oo waxay sameysaa in qashin ka saareyso dhammaan wixii soo gal jirka gudihiisa liverka maadaama shaqadaas ay qabato adigana xilliyada oo jirka bini'aadanka oo shaqo badan qabanaynin oo hormoonka dhicaamaha jirka oo soo deena dhan oo retired yahay xilli oo jiif oo si maray inuu nasanayo waxa isticmaashay heavy food qaata raashin adag qaasida waxyaabaha dufinta ama waxa kale oo u badan yahay sourcigan dadka xafiisada ka shaqeeyo kale xafiisada fadhisa oo qabow ku dhex jirta wax problem oo kuleel ma aragtid isla markaa aad soo baxdeed baawar ku socota guriga ku soo laabatay dadkaas oo kale aad khatar ugu haya mooga iyaga raashin dufin isticmaalaan cudurka marka wuxuu sababaa wax loo yaqaan gallbladder stone oo keena hadii oo qofka dufinta badsado hadii oo dufinta cagaarshow beerka oo ku naqawaayo wuxuu u sababaa gallbladder yellow fever inuu ku imaado oo korka dhan oo qofka oo isbedel midabkiisa jaalo oo noqdo oo midabkiisa jaalo noqdo rasalta arintaasna waxay keenayaan uu dhinto keenay qofka marka saas darteeda cudurkan waa cudur aad halis u ah isticmaalka raashinka dufinta la iska ilaaliyo waxa aad loo isticmaalo waxyaabaha oo khudaarta ah hadaad jeceshahay hilibka waxaad isticmaashaa hilibka waqti ay ku haboon tahay xilliga qadada kale ama subaxdii morningka mar walba dad hilib cuno tahay waxa sameysaa every day 2 hours exercise samee oo jirkaaga gub hadaad jirkaaga ma gubayo waxaan arkaa iska cunaa hilib waxaan arkaa waa iska daldala problem waxa ku imaanaya inuu jirkaaga sumoowo adoo jirkaaga sumowana problemka kugu ziyaada adoo kugu ziyaadana waxa laga yaabaa inaad u dhimatid laga yaabo problemkaas marka saadan ugu dhimanin problemka cagaarshow dad badan oo dilay silent killer loo yaqaan ma dareemaysid shaqo fiican haysta title fiican joogta maal walba xafiisa fadhiisata waa ka soo tagay waa si aaday mar dambe waxa arkay adoo sariirta jifto oo hurdada kula tagtay oo aadan soo kicin maxaa keenay organka jirkaaga uu baabi'iyay ilaa high toxin way detoxification oo sameeyna liverki oo wuxuu ku sameeynaa inuu anti detoxification ku sameeyo oo liverki oo wixii qashin saarka sameeyna uu sameeyo way cudurkan waa cudur hadis waa la baaraa sida loo baaro iyo qaabka oo sheebaarka kilibaan soo diyaarin oo soo sharxi doona cagaarshow see laga hortagaa cagaarshow waxa laga hortagaa example mar alla markaad rabtid inaad isticmaashid waxyaabaha dufinta ee isticmaal waqti ku haboon sida early morning ama afternoon mar walba aad wax dufin isticmaashidna drink a lot of water biyo isticmaal soo jirku ugu nugulo ama jirkiisa ugu diyaar garoobo inuu waxaan burburin karo jirka hadoo helo biyo ku filan energy ku filan wuxuu awoodaa inuu waxaan burburiyo badi isticmaalka biyaha during markaad isticmaasho waxyaabaha meatka oo hilibka iyo waxyaabaha proteinska labadaas markii la isticmaalo waxa aad loo isticmaalaa a lot of water hadaad biyo badan isticmaalin problem waxa ku imaanayo dufintaas oo jirkaaga ku badato inay sun kugu noqoto ama gastric ay ku keento ku keenay gastric problem ku keenay ilaa digestive system ku aado wixii burburin karto ilaa wixii ku burburiyaan dhiyaaman ma istaan dhiyaamanka ku yaraaday maadaama dhiyaamanka ku yaraada problemkaas ku imaanayo marka na dhiirigeliya si aan mowduuc aan intaas ugu soo badan u soo gelino cashirkeeni intaas oo og yahay see you next week all the best